22 Sebtembar 1980 habeen mugdi ah waxa kaliya oo la maqlaa waa guuxa diyaaradaha dagaalka dhulka waxa sidaan yaxay ugu soo degnayo askar heegan ah waa ciidankii Ciraaq oo u jeestay xuduudaha Iiraan dagaalkii gacanka Khaliijka dagaal socday muddo 8 sano ah laakiin wax guul ah ayna gaarin labada dhinacba waxa ka qayb galay dagaalka 40% dhalinta labada dal السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada bayaan media oo ka mid noqda asxaabta nagu xiran si ay uga bogataan barnaamijyada aan halkan ku soo baahino dagaalkii gacanka Khaliijka 1980 waxa qarxay mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ugu dhiig badnaa qarnigaas dagaalkan wuxuu u dhaxeeyay laba dal oo daris ah waa Ciraaq iyo Iiraan wuxuuna socday muddo 8 sano dagaalku waxa uu ku bilowday khilaaf siyaasadeed xuduudeed iyo mid diimeed oo u dhaxeeyay labada dal sababaha ugu waaweyn ee dagaalku waxa ka mid ahaa muranka xadka labada dal Ciraaq waxa ay doonaysay inay la wareegto dhulka loo yaqaan Khuzestan oo Iiraan ay maamusho balse ay ku badan yihiin dadka Carabta badda gacanka Ciraaq waxa ay rabtay inay si buuxda ugu xiranto badda gacanka Basra si ay ganacsigeeda badda u horumariso khalaasihii gacanka Islaamiga ah ee Iiraan 1979 hogaamiyaha Iiraan Ayatollah Khomeini waxa uu rabay inuu gacankiisa ku faafiyo gobolka taas oo Ciraaq careysiisay Ciraaq waxa ay weerartay Iiraan iyadoo duqeymo cirka ah iyo ciidamada dhulka ah ku qaaday dagaalku waxa uu noqday mid weerar iyo difaac isku bedelay iyadoo labada dal ay adeegsanayeen weerar waaweyn sida dagaalka dhulka iyo duqeymaha cirka iyadoo ay gaareen marxalad ay isku adeegsadaan sunta kiimikada Iiraan waxa ay dagaalka soo gelisay dhalinyaro badan oo xamaasadaysan halka Ciraaqna ay taageero ka helaysay wadamada Sacuudiga midowga Sofiyeedka iyo wadamo badan oo ay xulafo la'ayd xilligaas dagaalkan waxa lagu qiyaasaa in 1 milyan oo qof ay ku dhinteen dhaqaale ahaan labada dalba way burbureen oo sanado badan ayay dib u dhaceen dagaalku waxa uu sababay in magaalooyin badan iyo tuulooyin gabi ahaanba qariirada laga tirtiro 20 Agoosto sanadii 1988 labada dal waxay aqbaleen xabad joojin ay soo jeedisay qaramada midoobay waa xilli ay wixii dhim lahaayeen ay dhinteen dhaqaalihii labada dalna ay burbureen walina wax natiijo ah aysan gaarin labada dhinacba si kastaba ha ahaatee waxa la soo gabagabeeyay dagaalkii halkaas ayaynu ku sameeynaa saaxiibayaal mowduucii maanta inagula wadaag commentiga haddii ay jirto dhacdo aad jeclaan lahayd in aynu muuqaal ka soo sameeyno